iyadoo sanadii ugu dambeysay weyn ugu soo badanayaan tartan xoogan iyo guclayna ugu jiraan garoomada kala duwan ee diyaaradahu ka aadaan kana soo degaan gudaha Somaliland. diyaaradaha laga leeyahay wadamada dariska ah Somaliland iyo sidoo kale wadamada caalamka kadib markii dayactir xoogan iyo dib u habeyn lagu sameeyay garoonka diyaaradahu ka aadaan Cigaal International Airport magaalada Hargeysa kana gudbay imtixaano kala duwan oo la mariyay. tartanna la galay gagooyinka dhigiisa ka dhisan isla Geeska Afrika ayaa waxa saaka hiirtii horena si rasmi loo daafuray duulimaadyo cusub oo diyaaradda Air Arabia oo ka mid ah diyaaradaha ugu waaweyn ee xilligan u kala goosho wadamada caalamka ay kaga bilaabayso gegida diyaaradaha Cigaal. goorsheegtu waa 6 subaxnimo ee magaalada Hargeysa. halkanina waa barxadda weyn ee hore ee diyaaraduhu soo caga dhigtaan ee Cigaal International Airport. halkanina waa mid ka mid ah howlka ka dhex binaysan xayndaabka guud ee garoonka diyaaradaha Cigaal oo saaka u reebana ibafulka duulimaadyada cusub ee diyaaradda Air Arabia kana soo qayb galeen madax tiro badan oo ay kamid yihiin mas'uuliyiinta sidoo kale madaxda diyaaradda Air Arabia oo ka soo kicitay magaalada Shaariq ee Cariga wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland wasiiro xildhibaano salaadiin cuqaal duqeyti waxgarad iyo dadweyne tiro badan oo marti sharaf ku ah isla munaasabadan. barbilow waxa kulankan ibafulay si weyn sharaxaad uga bixiyay ahmiyadda gaar ahaaneed ee ka leeyihiin duulimaadyadan cusub ee diyaaradoodu ka bilaabi doonto gagooyinka diyaaradaha Somaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa. xubno ka mid ah mas'uuliyiinta diyaaradda mas'uuliyiin kala Captain Maxamed waa duuliyaha diyaaraddan Air Arabia, Rijish oo ah maamulaha guud ee isla diyaaradda Air Arabia iyo sidoo kale wakiilka gaarka ee diyaaraddan u qaabilsanaan doona Somaliland Cabdisalaan Xaaji Axmed. maanta farxad weyn bay noo tahay inaan tiimkayaga Al Arabia keeno ay noo soo dhawaadaan oo insha Allah ka bilaabi doona duulimaad 2 cisho wiigi xaggan insha Allah Hargeysa. managementka jooga iyo maamulkaba aad iyo aad baan u salaamayaa. dawladuna aad bay noo soo dhaweysay wasiirka iyo dadkiina la shaqeynayay. markaa waa sharaf weyn noo soo gurmatay oo noo soo hagaagtay Somaliland inay xiriid duulimaad yalla in doolanto dadka u dhaweyn doonto. Being here today, in fact, Abdussalam and I go back 6 years ago when I first visited Hargeisa, and at that time we went to Barbara and I had to drive all the way from Barbara with a car to Hargeisa because the runway was short. I'm very impressed what the country has achieved. In Hargeisa, we put Hargeisa on our international map of the growing Air Arabia network. We are confident that with your support and your blessings, we are going to only go higher and higher in terms of increasing frequency to this beautiful country. dhankooda waxaa eraya kooban munaasabadan ibafulka ku cabiray gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo ciidan jineer Faysal Cali Waraabe, gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbi xaakimka talada haya kulmiye Axmed Cabdi Dheere iyo sidoo kale xogeyaha maaliyadda xisbiga wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed. inta lagu gaari karo danihii la lahaa inay hagaagaan shirkadana waa shirkad weyn oo caalami ah. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa madaxda halkan u joogta oo ugu horeeyo Maxamed Cabdisalaan Xaaji Axmed. Allah Taala in shaqaalaha reer Somaliland amba imaaraadka degan amba halkana oo leh kartida iyo aqoonta diyaaradaha soo wada shaqeynaya in la shaqaaleyn doono insha Allah Taala. waxaan ku leeyahay ku soo hoyda this your home. waan soo dhaweynaynaa runtii mahad waxa leh dhalinyarada reer Somaliland ee ka soo shaqeysay diyaaraddan inay halkan timaado duulimaadkeeda ka bilowdo. dhankooda waxaa eraya kooban munaasabadan ibafulka ku cabiray golaha wasaaradda duulista iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland Farxaan Aadan Haybe oo isla saaka ka soo laabtay socdaal ugu maqnaa dalka dibadiisa. sharaf weyn bay maanta inoo tahay inaynu halkan ku daahfurro inay shirkadda Air Arabia ka bilowdo Somaliland markii ugu horeysay duulimaadyadeedii. waa u mahad celinaynaa madaxda ka socota shirkadda halkan inoogu timi. runtii maaha markii koowaad ay yimaadaan, tiraba dhowr jeer bay yimaadeen. intaaba dadaal la waday bay ahayd inay qiimeeyaan oo ku qancaan adeega aynu ku hayno madaarka ama wasaarad ahaan adeega ay u hayso dalka. dalkay faa'iido u tahay iyo horumarkiisa wixii maalgashi wuxuu doonaha noqday wixii dan u ah dalkeen dib u keenahay la soo dhaweeyo halagana daayo wixii dhibaya ama dhaleecaynta iyo bayrta iyo nabarka loo yeelay. sibadan si rasmi ah u soo abmaray madaxweyne ku-xigeenka Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayrici iyadoo isla saakaba si rasmi ah xariga looga jaray xarunta guud ee diyaaradda Air Arabia ku yeelan doonto gudaha Hargeysa gaar ahaan faras magaalada Hargeysa. inaynu daahfurayno shirkad cusub oo diyaaradeed oo magaceedu yahay Al Arabia oo inagu soo runtii ku soo biirtay
diyaaradii hore ee madaarkan Cigaal International Airport isticmaalayay ama Somaliland ka ganacsanayay waxaan leeyahay runtii waa guul aynu wada leenahay waa guul cid kasta oo Somaliland laga soo bilaabo maalinta ay goonis ku taagtay ilaa maanta inta nool iyo intii dhimatay baa runtii guul ay wada lahaayeen weeyaan waa mid ku timiday isku tashigeena aynu ku gunudnay inay dalkan nabad duulimaadyadan cusub ee diyaaradda Air Arabia ay waxay qayb ka noqonaysaa duulimaadyo tiro badan oo muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn ugu soo badanaya gaagooyinka diyaaradaha Somaliland kadib markii dib u habeyn mugle iyo dayactir la taaban karo ay ku sameeyeen mas'uuliyiintii xilalka u kala dambeeyay ee wasaaraddan ka soo ariminayay gaar ahaan mas'uuliyiinta ilaa hadda gacanta ku sii haya ee si weyn ugu hagar baxay muujinta bilicda guud ee garoonkani kula tartamayo garoomada kale ee dhigiisa ka dhisan isla qaaradan Geeska Afrika. sugidda ammaanka ayaa qayb lixaad leh ka waxyaabaha soo jiitay madaxda kala duwan ee caalamka ka socotay socdaalka ku yimaada garoonkan diyaaradaha Cigaal. Faysal Maxamed Aadan, Faysal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable, magaalada Hargeysa.